الرحمن الرحيم. عيل كان عندي بمكة والله قضي قبلها جلسلي لما كان وقف أما تبرعات الحاجة بالشدة محاكر اللي هو حي غير ما أنت بالشدة كولي جني عيل كان وحاد دستي حافظي فاطمة عبد أمس وحين أقضي بالشدة محاكر جلسلي دقمة الحن عيل كان بيه سمود بقى ساعد أركتني قدام ياريه وأكو كذا سنة يدتي وكذا سنة يان حوالي كعبيان ودركاسي كعبيان لبيه هون متر بخاص وقضية isla markaa waa ceel bad ah oo aan go'aynin marka waxa weeyaan annaguna waxaan kula daarmaynaa bulshada ceelkan loo qaday inay ilaashato inayna waxaan ku raayaa inay iskaga ciyaarin waa hanti aad u fiican runtii waxaan qabaa qabalaha Garsley inuu ma garanaysay xaaladda biyihiisa ama biyaha nadiifta markii la yiraahdo inay ku noolaan hayaan oo bulshada uu isbedel ku keenayo biyo nadiif ah weeyaan ceelku mar hadduu xandibameysan yahay biyihiisu waa nadiif weeyaan oo biyo waa biyo daboolan nadiif ah marka bulshada waxaan ku daarmayaa ceelkan inay ma garanaysaa ay ilaashato gabadha ceelkan badana aad baan uga mahadcelinaynaa annaguna waan bogaadinaynaa inay gabadh wadaniyada ay tahay islaaqaanka bulshada ay ku dhistay aad iyo aad baan soo dhawaanaynaa aad iyo aadna way mahadsantahay ma sha Allah iyaga leeyahay ceelkan waa ceel tabarruc ah تبرعوا فاطمة عبد أمس متطوعات قارئة ويان وآد دنينيسا dadka ay ka dhalatay iyo bulshadii baahida qabeen xusuusan weeyaan waana xubin mutatawic ah oo naga jira qurbaha naga jira weeyaan kaas oo ugu deeqday qabalaha Garsley ama sanadka Garsley degmada Dhuxuleed way soo gaarsiisay Faadimo bulshada Garsley soo gaarsiisay ceelkan oo baahi fara badan u qabtay ceelkan oo kale tusaale ahaan hadda toban sano oo kale waxyaabaha soo daashaday ee mar walba ka dhaca waxaa ka mid ah ceelku waxay leeyihiin dixdi biyaha raacay leeyihiin oo aad loo kala gelinin kaadida iyo mataqaanaa marar fara badan bay kaadi qabatay ama xaaniga saman oo kale uu ka soo dhacay hadda ceelkan waa ceel ka sifaysan xaaniga saas tahay dadka raaci jiray biyaha dad badan inay la siwaan wada ognahay waxaan idin kula tartaarminaa anagu inay bulshada Garsley inay ilaashadaan ceelkan midna waxaan ugu baaqaynaa qurba joogta mutadawiciinta ee degmada Dhuxuleed u dhalatay ee daafiyaha caalamka la joogto inay ku daydaan Faadimo Cabdi Amas oo kale tusaalahan oo sidaadoo kale ceelal tabarruca waxyaabo tabarrucaada oo dadkooda ugu deeqayaan inay diyaariyaan kagana daydaan gabadhaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa iyo tusaalahan Nimco Caliyaasiin ceelkan waxa weeye qorshihii labaad ee ka fulay tabarruca sida mataqaana dugsare waa tabarruc Garsley oo waxa dhistay Nimco Caliyaasiin ceelkana waxa dhistay mataqaana Faadimo Cabdi Amas lacagta ku baxday tusaalahan ceelkan lacag xoolaha ee mataqaana qofka lagu qiyaaso lacagtan Itoobiga birta 300,000 oo bir lacag lagu qiyaasaa ku baxday hantida inta waxay u baxaysay in la manaafacadsado weeyaan marka bulshada Garsley waxaan ugu dardaarmaynaa hadii la yiraahdo inay ka faa'iideystaan ceelkan sida loogu talagalay inay ka faa'iideystaan si la xijaalan ay waliba ilaashadaan ka u yariyo ku weyn haddaan hantida la raacanin oo la ilaashanin gabadha hantida ay khasaare in laga dhiga ma doonin danta ugu talagashay inay khasaare noqoto ma doonin marka idinka laftiin sidii dantiin ku jirto waxa weeyaan ceelkan in la ilaashan si guud in la wada ilaashan odayaasha waa Garsley ceelka gabadhii waanu u ducaynay waanu u baahanahay waanu rabnay waanu taageerayna waanu u ducaynayna ceelkina annaga xilkiisa qaadnay oo ku wareegay Allah ka jirsiyo dantii leeyahay Allah ka yeelo Allah salaam